برا حسين وكاقا أنا أرسله ما شاء الله. ورمولا جرمل لا إله إلا الله. وراد بنكو سلام واسوله ما شاء الله. سلام سرع. عبدي عبد الله جود مورنين اد بكو سلام واس اديك رسوله ما شاء الله. عمر حكين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورمانتي وإذا السلام يا سلامة إسلامك إذا كو سلام يا أذياد ناكتان إلا بلوغ ريوة بلوغ الوقت بلوغ قادم مع سلامة أذياد من الصبح يا رزاق يا فتاح عن لين هابي عايكو قلصو كليس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلوغ بنكو قبت والله بين ما والله بلوغ بنكو قبت أذياد بشير عرب آد بكو سلام واسود وهذا سي شير قرية قارسية إيديكو بانسان بيجيش كاليتو وواسك واسيدا وواسك تقبلوها وأرور هروي مقرس وقف دمرة صور بأسار إيدا بقال عاديات قفت أنيسو فورو كذا هلي كينمر أنيسة عبد علي قفت بلوغ ساروي كتب بقال سكرين شات يقصو قاعدة إينا كان عاديات آد ما يدي سلام يا سود وهذا ما شاء الله وواسك وقاسيدا وواسك تقبلوها كبلو فارح ولا الكيش معو كيكيرا بشير بالله مطران حاسة قرص عب كيس قرش ودرس كيس كونه الله وراو ناقر سيكو ساها جاب بكجا لكتي مع الشورية بناوين شنطة أبغى بقري هذه ما أنت بلدوين بكاد لينا سياسة دوان سكيرة يرينا إن شاء الله الدولة رادو لبضان مالين إلا صدحدان مالين إلا صور دافي بيج كي وحكلة تكمان سوقرين أنا كأهين فتهادها أما وبيجا ساميي أما دبعتها أوجستي ريه هيران أما ريه بلدوين ما شاء الله ودد ولا لها نجوي ودد نلد الشيء أديان حق بين نقول ليهين إن أنا مجرس أوكعنو حق بين نقول إنه ويستغنو أديان وأنا دي سلام يا خير شرفت الله أردن ملول البيت أديدا كسوتي ساك وأرور هري يا رزاق يا فتاح ومن الصبح أرور شقة سوق لي ما شاء الله أنت أنا مشغولين بنقول تلقلنا لايف كسوق قلو أديان أنت أنا باللابن warbixinta ama aan analyze aan u soo galay ama arintan aan hadda promoter gareyn doono aan hadda aanan bilaabin wax yar banaca siyaasadda iyo rag siyaasiyiin ku yar hormaraya waxa la isweydiinayaa oo la baafiraya oo dadkii isweydiinayaan aaway ninkii ahaa Sambalosh siyaasigii fashilmay ee la oranayay Sambalosh idaacadaha intuu soo fariistay dadka Soomaaliyeed kala qaaday kala takooray qabyaalada iyo qabiilka ku faanayay maanta oo kala rabaa inuu idaacadaha intuu yimaado la wareesto oo la weydiiyo Soomaali waxa ay kala tahay in maanta oo kala la weydiiyaan anigu jeclaan lahaa sababtoo wuxuu sheegtay inuu ka soo jeedo Hiiraan especially Beledweyne inuu ka soo jeedo dadka Soomaaliyeed oo wada dhashay oo ul iyo diirkeeda wada ah oo aan la kala qaadin wuxuu ahaa siyaasiga ugu horeeyay ee kala qaaday buu ahaa wuxuu ahaa siyaasiga ugu horeeyay intuu idaacad soo fariisto yiraahdo aniga reer hebel baan ahay Beledweyne looma dhawaan karo Hiiraana looma dhawaan karo anaana matala yiri aadiyaad marka Sambalosh waxaan rabaa maanta intuu idaacadaha yimaado ama la wareysto ama كاذبا ناقهن عيتمي حقيقي ماذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقف دمره لبضة يد الوقت تحت ذاك الله يسنا بلوغ هذا هذه بلوغ قبته إلا ويديا ما أنت وإنتو إذا عد ويماذا ويراهذو ريب بلدوين بارهاي إنه ما أنتو إذا عدها يماذا بالصومالي وحا إكلتها إنه ما أنت الشيء أيها لقربها هذه صوبتها وسياسي فشلمي sababtoo maanta dadkiisii iyo deegaanada uu ka soo jeeday intuu qabiil iyo reer ku mashquulsanaa ama cid iyo dad kala goyn iyo beelaan kala nahay ciidan kala nahay uu ku hayay maanta waxa weeye hal kiish oo carre waa dhigi waay wabiga wa hal kiish oo carre intuu carre ku shubo waa geen waay wabiga wuxuu u geen waay hal faleemba ah fadhigaysa hal faleemba xataa intuu qaado waa geen waay aad iyo aad magaraysaa
بسم الله الرحمن الرحيم رقبا كوغن عايد وام حدمر كان عايتمي يا هل كيش او عرأي سمبلوش انتو قادوا واقين وبيق واقين سمبلوش مانتا وانا بافناوي سمبلوش مانتا وإلا إير راذياوي سمبلوش مانتا وانو إذا عدها الدعوضوي سمبلوش مانتا وانو أركاد دقبلو iyo wiilasha iyo gabdhaha hiiraan ku nool inay walaalo yihiin inuu maanta dareemaan raba oo uusan kala qaadi karin oo uusan kala kixin karin oo uusan qabiil magaraysan uu kala takoor karin maanta inuu arkaan raba Sambalosh ma sha Allah marka waxba ku sii dheeraan baa Sambalosh maanta idaacadaha imow oo bal umada waxaad u sheegi jirtay u sheeg bal maanta ama wax ka duwan u sheeg maanta waxa weeye Sambalosh in badan baa tirey hiiraan baanahay idaacadna lagama arko lagamana arka TV lagama arko adiga oo u campaign gareynaya ama mutadawacnimo ugu shaqeynayna laguma arko sideed ku matashareer hiiraan sideed qabiil ma garanaysaa ku sheegataa su'aalahaas oo dhan baan oo duqbalow maanta aan ku hordhigay aadiya waxa laga rabo waxa weeye inaad maanta جوان انتاد قايت عركو شبتدو وبيغا دغتid beed inay maanta reer hiiraan ku arkaan bahayd magaraysa ma hena reer hiiraan TV-ga timaadid oo dadka ku dirto tiraadi waa reer hebel duqbalowna waa reer hebel farmaajana waa reer hebel inaad tiraadid mee waanaad carra maanta qaadatid oo hooyooyinka reer hiiraan iyo hooyooyinka reer beledweyn maanta badbaadi ka raban maxaa la dhuumatay maanta Sambalosh maanta maxaa la dhuumanaysaa maanta maan ku aragno maanka idaacadaha ka daawano adoo dabagaab wato oo magaraysa juwaan carre wato ama hooyooyinka biyaha ku soo fatahaday maanta adoo garab taagan Sambalosh maan ku aragno kuma arki Sambalosh adiga iyo rag badan oo siyaasiyiin idin ma arko maanta waxa reer hiiraan u taagan waa walaalkood duqbilow walaalahooda garawa joogo walaalahooda muqdisho joogo walaalahooda qurba joogte walaalahooda Soomaaliyeed iyo dawladooda Soomaaliya ayaa maanta u taagan banaanka u taagan Sambalosh adigana kuma arko cid ku aragta male aawe qabiilkiyaad ku faareysay aawe reerkiyaad ku faareysay aawe dawladda filla Soomaaliya aniga hal la igeeyay cidda hal la geeyaad oranayay aawe Sambalosh inaad qabyaaladiista xun tahay umada maanta way ku aragtaa inaa waxa xal igu soo gaartay in magaraysaa bi xiranadii beledweyn rag adiga kula mabda inay dhagaxya ka qaadeen balayshay inay fatahaadahan ay ka duwan tahay fatahaadihii horeete ee beledweyn ku dhufan jiray inay ka duwan tahay baan ogahay oo la ii sheego ay sirteedii xaqiiqdeeda la soo gaarsiin aaway Sambalosh maanta kuma arkay aaway anigu baa dhawaaqayo walaalaha Soomaaliyeed baa dhawaaqayo ama Hargeysa ha joogan ama Boorama ha joogan ama gaalkacyo ha joogan ama muqdisho ha joogan wiilashii Soomaaliyeed iyo gabdhihii Soomaaliyeed ayaa maanta dhawaaqayo social media ragga wax ku qoriyo iyo gabdhaha wax ku qoriyo waa walaalihii reer hiiraan weeye waa walaalihii reer beledweyn weeye kuma arko adiga meelad qaban qaaba ka wadidna cid ku jeeda malaha kuma aragno xataa adoo dhiig shubaya kuma aragno حتى هذا جوان عركو شبطيو دادك at least حتى وحير كبد بادينيا كما أرقنو واد راحي سريسا هوتيل جزيرة دقنتهاي هالكاسا لغو كيريا قراعدي هالكاسا لغو كيريا شاهي بيكولولنا وادكو قبيشانيشا دادك هاقنا وينمانيان إذا عدى مركا تماديننا رير هبل بانهاي عيد هبل بانهاي ياد إذا عدى لتاقنت Sambalosh كو آوي مانت kuma arkay ku aaway Sambalosh kuma arkay ku aaway maanta dawladoodii baa reer hiiraan u taagan muwaadiniintii Soomaaliyeed baa maanta reer hiiraan u taagan annaga u istaagan annaga u kacsan annaga magaraysaa xalay iyo habeen hore iyo tii koreysaba aan seexanin oo dadka walaalaha annaga bartaa degan u istaagnay oo shilimaad iska gureyno oo dhaqaalaha iska gureyno haddaan Minnesota joogno iyo haddaan London joogno iyo haddaan Muqdisho joogno iyo haddaan Garowe joogno iyo haddaan Gaalkacyo joogno iyo haddaan Hargeysa joogno iyo haddaan Kismaayo joogno annagoo wiilal Soomaaliyeed iyo gabdho Soomaaliyeed iyo hooyooyin Soomaaliyeed oo aan qabiilna aan lahayn qabiil malihin wax qabiil la yiraahdo oo leenahay haba yaraatee ma jirto waxaanu nahay Soomaali hooyadan baa ku dhibaatoonaysa beledweyn aabbahan baa ku dhibaatoonaya beledweyn
carruurtii aniga ila dhashay walaalahayga ahaa yaa ku dhibaatoonaya beled weyn qabiil kuma taageerayo reerna kuma taageerayo laakiin inay dhiiggayga iyo dheecaankayga yihiin yaan ku taageerayo yaan ku garab taaganahay aaway Sambaloolshow aaway qabyaaladii aad sheegaysay Sambaloolshow aaway reerkii aad sheegaysay Sambaloolshow aaway ciddii iyo familkii aad ku faanaysay Sambaloolshow aaway barbagandadii iyo beentii aad waday Sambaloolshow aaway kuma arkay aaway yaa kuma arkay aaway Sambaloolshow kuma jeedo Sambaloolshow wallaahi baana ku arkin kumana jeedno shacabkii Soomaaliyeedna ku arkaan waxaan ku aragnaa on ognahay oo la soconnaa inaad jaziira jiifti saacadan hadda waqtigana kula hadlayno meesha hooyadaada Soomaaliyeed ku dhibaatoonayso meesha walaashaada Soomaaliyeed ku dhibaatoonayso meesha reerkiina iyo dadkiina ku dhibaatoonayaan ee biyaha fatahaadaha saa ugu soo rogeen inaad jaziira joogtid hadda jaziira inaad joogtid ood kabajiino cabaysid yaan markhaati ka nahay inaad kabajiino cabaysid oo bakeeri shaah lagugu keenay oo fruud lagu soo jarjarayo oo lagugu keenayo jaziira oo waiter uu ku keenayo yaa la soconnaa waxaan ognahay inaad ku raaxaysanaysid reer hiiraanka maanta dhibaatoonayo inaad maanta ku raaxaysanaysid reer hiiraanka daadka qaaday inaad ku raaxaysanaysid wiilashanadii gabdhahanaga bartaa ku dhimanay inaad ku raaxaysanaysid ba markhaati ka nahay maanta waxay haddaad run sheegi ood muwaadin Soomaaliyeed tahay Sambaloolshow inaad idaacadaha taagnaatid inaad baabuur raacdid inaad beled weyn tagtid inaad jiwaan qaadatid inaad ka moostid biyaha daadka dadkanaga qaadayo inaad carrab maanta u qaadid waxaan dhihi lahaa kaa waa laandheera kaasi waa laandheera dhalay oo wallaahi ka run sheegaya wuxuu sheegayay yaan oran lahaa laakiin yaa ku arko dhibka dadka lama qaybsatid rafaadka dadka lama qaybsatid dadku ma garanaysaa oo inta lama qaybsatid dhagayso laakiin inaad ma garanaysaa reer hebel baanahay madaxtooyada reer hebel ha tago madaxtooyada anaga tagayno tu beelaalaata aad iyo aad maanta la iskala bartay siyaasiga daacadda iyo siyaasiga runta iyo siyaasiga aan daacad ahayn maanta la bartay reer hiiraanna maanta anaga u taagan ma sha Allah haddaanu joogno qurbaha Mareykanka haddaanu joogno Yurub haddaanu joogno Soomaaliya reer hiiraan maanta waxa u kacay qabiil ma ah reer hiiraan maanta waxa u istaagay reer ma ah reer hiiraan maanta waxa u kacsan ee dhaqaale iyo wax walba aruurinayo ku qabiil ma waa Soomaali walaalkooda diirka intuu dhaqaaqay xanuunsaday arkay walaalahooda Soomaaliyeed oo biyo ku soo fatahaadeen aad iyo aad meeshaad ka dhawaaqaysay Sambaloolshow ee idaacadaha la fadhiday roobkan inuu imaanayo waan ogeyn ilaa deegaanka sheegtay oo dadka ka xigsaday roobkan inuu soo socdo wala la socdo waxay ahayd inaad inta kacdid hiiraan joogtid bay inuu biyaha kugu qabtay hiiraan bay inaad ma garanaysaa organize garaysid dhalinyarada iyo waxgaradka reer hiiraan bihayn inaad juwaano carra ku shubtaan bay inaad geysaan oo la moosay ahayd aad iyo aad in la mooso oo carra lagu shubo oo biyaha dadka la yiraahdo evacuation ilaa biyaha way soo rogman doonaane dadkaygiiyo soo kaca dadkaygiiyo ka baxa dadkaygiiyo wixii hantiya ka qaata dadkaygiiyo meesha taagan geeya dadkaygiiyo biyaha haday soo rogmadaan iska diyaarino ayay ahayd Sambaloolshow inaan maanta iyo wiya ka hor iyo bilooyin ka hor inaad isu diyaarisid bayd isu maadan diyaarinin muqdishaad fadhiday qaxwa ka bajiina la dhaad cabaysay dadkaad qabiil iyo reer ku kala kaxeynaysa aad iyo dadkaad qabiil iyo reer iyo cid iyo jifo iyo waxa loo joogin ya dadka ku kala kaxeynaysa anigii baad cuqdadi gelisay reer hiiraan baad dadkii ku dirtay reer beled weyn baad dadkii ku dirtay dadkii baad kala fogeysay dadkii baad reer iyo jifo dhigtay adoo siyaasi Soomaaliyeed ah adoo siyaasi Soomaaliyeed sheeganay hadda siyaasi Soomaaliyeedna matid reer hiiraanna matid reer beled weynna matid sababtoo maanta haddii wallaahi oo billaahi oo tallahi inaan beenahay haddaad maanta run sheegi Sambaloolshow aday ka shaqanta aday iga ka dhaganta sababtoo aniga ilaa daraad ilaa iyo shalay ilaa iyo saaka ilaa iyo maanta waxaan leen isku xiriyo daba socdoon soo qorayo ku jira hiiraan war indhaha la saaro war miidiyaha Soomaaliyeedow indhaha saara hiiraan aanu gurmadno hiiraan aanu dagaalanno war dhaqaalahan aruurino war dadkanaga hal la badbaadiyo siyaasi ku dayn mayno cid kale ku dayn mayno waa walaalaheen waa dadkanagi waa hooyaday waa aabahay ilmaha yararka meesha ku dhimanaya ee masaska iyo yaxaaska ku soo fatahaaday waa dadkayga way ku dayn maayo cuqdad isgelin maayo dhihi maayo Sambaloolshow shalay saa igu yiri ma dhihin anigu
soomaalina may dhihin maanta nin walba oo damiir leh oo walaal Soomaaliyeed kuwa aad takortay weeye Sambaloshow kuwa aad takortay ba maanta boorama maanta mikrofoonna gaarigeetay saarteen bay walaalahooda mutadawacnimo ya Allah ya Soomaali bay leeyihiin adiguna waxaad ka dhigtay Sambaloshow inay yihiin reer Somaliland inay yihiin qabiil hebel inay yihiin cid hebel inay yihiin jif hebel inaad tahay jif hebel inaad yihiin hiiraan jif hebel yaa dadka ka dhigtay maanta garowa mikrofon laga wataa oo la dhawaaqaya oo la leeyahay yaa Soomaali yaa Muslim hooyadan baa ku dhibaatoonaysa wiilashanadii baa oynayo gabdhahanagii baa oynayo laguma dabadayana Sambaloshow maanta ha ku gaara hiidka maanta iska tufka bajinada maanta qaylaada iska tuf maanta dareenkaaga ha kaco ilan qabiil baad la soo calool buurantood la soo furida TV ana reer hebel hiiraan baan ka imid hebel baa la yiraahdaa garaysa qabiil hebel baarahay waxba nagama gelin dadkaas aan takoorayna nin walba deegaankiisa Soomaali waa mid weeye Sambaloshow Soomaali waa mid weeye waa hal xabba weeye waa ul iyo diirkeeda weeye waa la isu kacayaa waa la isu istaagayaa maanan fiiri damiir xumadaada Sambaloshow markaadna takoortay oo Soomaalida takoortay oo shacabkii takoortay oo qabiil iska dhigtay oo hiiraan dadka ka xigsatay maanta markay dhibaatadu timid waad u kici weysay waad jiiftaa sariir air condition uu ka shidan yahay oo Jazeera Hotel la yiraahdo $270 $270 lagu degan yahay ayaad jiiftaa maanta waxa ordi waa hooye Hargeysa joogta way maanta waxa ordi waa aaba Garowe jooga way maanta waxa ordi waa habaryar joogta Boorama joogta way maanta waxa ordi waa walaashay Muqdisho joogta way maanta waxa ordi waa dawladii ummadda Soomaaliyeed ay dooratay weeye waxa maanta ordi Sambaloshow adiga xageed joogta xageed ku dhuumanaysa xageed fadhida waa dhuumanaysaa xageed fadhida meel baad ku dhuumanaysaa xageed ku dhuumanaysa waxaad ku dhuumanaysaa xeebta Liido waad raaxaysanaysaa air condition baabuur yar baad ku jirtaa laba askari oo magaraysaa hooyooyinkooda dhimanayaan yaa ku wardiyanayo waxa weeye baqbaq iyo qarrac iyo qabiil iyo cid baa la fadhida maanta siyaasi Soomaaliyeed ba ku aqoonsan lahaa maanta waxaan aamini lahayn oo aan dhihi lahayn warninkan maanta waxa uu sheegay runtii nin walba reerkiina u noqo nin walba ciidiina aad nin walba deegaankaaga orjuwaan dhig bandhilan haddaan maanta Sambaloshow ku arki lahaa adoo balad weyn dhex taagan haddaan maanta Sambaloshow ku arki lahayn adoo biyaha masaska iyo yaxaaska wato ee caruurtanada balad weyn jooga cunaya ee dilayo ee maanta magaraysaa masaska ku soo fataad maanta la dhex joogo fiiri oo maanta la qaybsanaya xanuunka oo maanta mutadawacnimada ka qayb qaadanayo aadiyaad maanta waxaan dhihi lahaa ninka siyaasiga dad badan baa dhihi lahaa ninka siyaasiga wuxuu sheegi jiray waa runtii dadkiisii buu dhimanaya masaskii buu ka celinayaa yaxaaskii buu ka celinayaa dhibaatadii buu ka celinayaa war haloo istaagan dhihi lahaa aadiyaad Sambaloshow ku aaway ma Jazeera joogtaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur yaad hoosta kaga jirtaa Soomaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur yaad la qaxweynaysaa hooyadaa waxba kaama gelin aabbaha waxba kaama gelin eedada waxba kaama gelin dhibka ka jira hiiraan iyo baladweyn waxba kaama gelin aadiyaad war goodax barraaw soo qorbla ku soo qabtaadiyaad waxa soo qabanaya labadan maalin saddexda maalin qorshan ku jirna anaga anoo duqbilow iyo beejka duqbilow ma sha Allah waxaan qaban qaabinaynay xalfado waxaan qaban qaabinaynay meel aan farnaysin ku sameeyno waxaan qaban qaabinaynay si aan magaraysaa dhaqaale qurba joogta nagu arurino qaarkeen biyo aan baabuurta dhaqno qaarkeen magaraysaa aan soo tuugsano si bal dadkanaga Soomaaliyeed aan dhiig joojin ugu sameeyno xasan goodax aadiyaad wax soo qorblaan ku arka waxa soo qabanaya ma sha Allah gudoomiyaha mini football qurba joogta Soomaaliyeed ma sha Allah xasan goodax oo reer Minnesota samafalana ma sha Allah oo aan qorshe ku jirno ma sha Allah aadiyaad inaad soo qabso wax yar sug telefoonka balac ka dhiga xasan goodax kaamiradaada ma shaqeynayso ma aqaan ka bax ku soo noqo aadiyaad ka bax ku soo noqo refresh ku samee ka bax Facebook live ka daawanaysa ka bax dib ugu soo noqo aadiyaad page kana like saar balsan ku soo qabto aadiyaad waxaan qabanqaabinaynaa ma sha Allah sidii aan ku caawin lahayn reer hiiraan waliba qurba joogta North America joogto insha Allah haduu leeraado dhalinyar Soomaaliyeed gabdha Soomaaliyeed wiilal Soomaaliyeed oo reer Minnesota ama North America joogo ayaa is qabanqaabiyay ma sha Allah
sidii caadada aheedee duqbalow iyo muwaadiniinta soomaaliyeed looga bartay gaariyadaasaan dhaqaynaa albaab walba business walba oo soomaaliyeed baan qaraacaynaa insha allah hadduu la yidhaahdo waxaa weeye gacantaan hoorsanaynaa waxaanan u istaagayna waxaa weeye waa hooyooyinka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed wey madaxweynaha annagaa yidhi culummadanadaa tiri waa in soomaali ayadu isku tashataa wey waa inay soomaali ayada isku tashataa wey waa inaan 100 ka bixinaa waa inaan 50 ka bixinaa waa inaan $30 bixinaa waa inaan baabuurta dhaqnaa gabar walba iyo wiil walba waa inay istaagaan waxa bartaa ku dhammaanaya waa hooyada oo kaleeto wey waxa biyaha iyo daadka ay qaadeen waa walaashaay oo kaleeto wey maasha allah waa inaan taan u istaagnaa aan u kacnaa oo maanta iyo waqtigan iyo xaaladan taagan waa inaan u istaagnaa wey oon dareensiinaa shacabka soomaaliyeed inay walaalo leeyihiin inay leeyihiin arxan leeyihiin inay dad leeyihiin inaanan ku daynin siyaasi dambe oo qabiiliste oo fadhiyo jaziira iyo makaal mukarrama fadhiyo oo caacda ku hay oo dibara dhacsanaya oo hooyana waxba ka gal ku dayn meenaadiyad goodax barraadiyad dib u soo noqo waxay soo qoraadiyad san ku soo qabto sida garanaysaa igu maqaale insha allah hadduu la yiraahdo waxaa weeye gabdhaha annagii wax bartay wiilashanadii wax bartay reer Minnesota anigu reer Minnesota ahaa iyo Canada iyo meel walbeeto inaan istaagno wadooyinka istaagno baabuurta dhaqno ma garanaysaa maasha allah aan farraysna sameeyno si bal hooyooyinka Soomaaliyeed iyo aabayaasha Soomaaliyeed iyo caruurta Soomaaliyeed aan bal intaan u istaagno at least xataa aan biyo cad waxaan ugu gadnaan heli karna goodax aad iyo aad waa ku soo qabanayna adeer kaamiradaada niyo waxba ka khaldan ma garanayo telefoonada iska xir hal mar si aan ku soo qabto addu galay qabo fiila ma haystaa fiila haddaa haysato dami fiila haddaa haysato هذه أنا كعلي ورال نقطة هذه حسن قوضح ما شاء الله ومواد الصوماليات وريم مينيسوتا وحورة كم ذي هاي جدّجا عيارتوي ذا وحلو يقانا ميني فوتبول وحلو يقانو مالنا ويتوحي جوجل استراليا ما شاء الله وحي متلي وحيكون متلي يندلك الصوماليا وأنا ريم مينيسوتا وانا جدّجا قبل قابضة هذا ما شاء الله نورث أمريكا أما مينيسوتا ستيت أوف مينيسوتا qabanqaabadiisa hadda ku jira insha Allah si hooyooyinka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed hiiraan ku dhibaataysan farraysi loogu sameyn lahaa sidii ma garanaysaa ay dhaqaale loogu aruurin lahaa dadka hadda ku howlan waa insha Allah duleerado waa nin samafale waa dhalinyarta firfircoon ee reer Minnesota ayuu ka mid yahay waana ku soo celinaya insha Allah balse aan xog wareys uga qaadno iyo meesha la isugu ibaanayo iyo qaabka aan dhaqaale ku aruurin karno qaabkan dhiig joojin ugu sameyn karno dadka Soomaaliyeed ku dhaqan beledweyn dhibaatada webiga uu aafeeyay insha Allah haddii la soo dhawaada si share garay idinko maasan aad iyo aad meel walba aad joogtaan xasan goda hadaa fiilo soo qaatay ugu soo celi hal mar naadir Soomaaliya way guuleysanaysaa insha Allah haddii la Soomaaliya way guuleysanaysaa ummadda Soomaaliyeedna way guuleysan doontaa hadda okay hadda seeway hadda si fiican ku maqla ma sha Allah soo dhawow uga saad iyo adoo mahsan bal dadkan isbar intaan aniga ka hadlamay in kale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان bulshada ku xiran walaalkay duqbilow aad idin salaama meel walba aad naga daawanaysaan waxaan si toos ah uga jiraa magaalada Minneapolis ee Minnesota sug barnaamijkan share garay horta naftirkeyga okay horta hal maraan waxaan ka cudur daaranaa waxaa laga yaabaa barnaamijka horta dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan rabaa inaan uga tacsiiyo iyo dhibaatada ku dhacday
dadkaas Soomaaliyeed ku sugan magaalada Beledweyne kaliya magaalada Beledweyne ma aha dhibka wuxuu ka dhacay Soomaaliya meelo badan ayaa dhibaatooyinka laga soo sheegaya koonfur galbeed Jubbaland inkastoo magaalada Beledweyne ay tahay magaalada ugu badan dhibaatada ka soo gaartay fatahaaddan ee soo noqnoqonayso oo xag rabbaani ah ka imaanayso oo aan qofna lagu eeday karin waxaan kaloo rabaa barnaamijka intaan u guda gelin codka xoogaa dadka waxay leeyihiin daciif waa laakiin ii sugan dheereeya yar dheeris dhiman okay hadda see loo maqlaa waxaan rabaa inaan barnaamijka dadka uga cudur daarto saaxiibkay duqbilow horta aadan kaaga mahadcelinaa barnaamijkan iyo jaaniska aana siisay iyo sida aan rabno inaan message-ka u gudbino inkastoo waxyaabo badan oo ka dhawaajisay naftirkeyga aan jeclayn oo barnaamijkii xoogaa uu naga noqday qaab karbaash ah intii horeysay barnaamijka laakiin waa ka cudur daaranaynaa mucaarad iyo muxaafid maanta ma taagno oo waxaan rabnaa keliya inaan message u gudbino ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku sugan tahay inaan u sheegno in dadkaas ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah codka xoogaa la leeyahay waa dib male waa ku maqlaa dib male ku socdo okay Soomaan aad si wanaagsan marka waxaan rabaa bal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maasha Allah adoo mahadsan qabaqaabada North America especially gobolkan annaga deganahay Minnesota qaabka dadkan hadda maasha Allah aniga adiga intaan live ka soo galo soo wada hadalnay si wanaagsan waxaan rabaa dadku inay ogaadaan qaabka ay ku caawin karaan ama qaabka aan uga qayb qaadan karno sidaan hooyooyinka Soomaaliyeed ee Beledweyne especially meesha ugu dar hadda waa Beledweyne weeye iyo gobolka Hiiraan sidaan uga qabanqaabadan aan uga qayb qaadan lahayn iyo qorshaha hadda Minnesota ka socdo iyo warbixinteeda bal dadka hal mar la wadaag adoo maashan maasha Allah aad u maasan tahay duqbilow sida ogtahay xoogaa Soomaalida markii la rabo in wax la sameeyo waxaa iska jiri kara xoogaa waxyaabo badan oo yacni dadka sometimes ay u sameeyaan laablakac tan oo kale waa loo baahan yahay in si degdeg ah wax loo sameeyo wadankii gudaha waxaa ka socdo dhaqdhaqaaq aad u badan dhalinyaro badan oo isxilqaantay oo ku sugan gobolada dhammaan oo aanan lahayn qabiil oo aanan lahayn siyaasad oo wax kala xiriiri kara maanta aysan jirin kaliya ujeedkooda uu yahay hal meel kaliya ujeedkooda uu yahay in dadkaas loo gurmado dhibaatada ay saameysay maanta ma ahan maalin farta la isku fiiqo maanta ma ahan in arrintan looga faa'iideysto siyaasad ama political shot ama qof aa ku weeraraysaan ama qof aa ku mucaaradaysaan hadday noqoto muxaafidka ah oo sida duqbilow oo kale ah hadday noqdaan kuwa mucaaradka ah sida groupka Facebook ka hadlo arrintan ha noqoto arrin idin midaysa arrin ha noqoto ummadda Soomaaliyeed wax ku qabanaysaan waa ummad walaalihiina waa ummad dhibaataysan dadka Soomaaliyeed inta aan ka bartay waa dad wanaagsan waa dad isgarab istaaga waa dad aan qabiil lahayn yacni qabiilka kaliya waxa yacni loogu talagalay kaliya in يعني قف waxaan rabaa inaan ku weydiiyo godax maasha Allah Minnesota qaabka aan uga qayb qaadan karno maadaama kaadiriinta Minnesota ka mid tahay haddana aan la diyaarinayo qaab magaranaysa looga qayb qaato si hooyooyinka Soomaaliyeed dhiig joojin loogu sameyn lahaa qaabka hadday noqoto xataa biyo cad oo nadiif lagu geyn lahaa qaabka dadka Minnesota degan annaga hadda Minnesota ka hadlaynaa iyo North America oo deganaa maadaama publicity fiican aan hadda haysano oo dad badan ay dhageysanayaan maasha Allah Soomaaliyeed waliba degan North America qabanqaabada hadda socoto iyo qaabka fikirkaaga aan ku caawin karno reer Beledweyne iyo gobolka Hiiraan hadda dhibaatada xun ay ka taagan sidaan macnaha Soomaalida hadda isu tabaabasheen lahayd iyo qorshaha socdo bal gal adoo maasan wallahi magaalada Minneapolis waxaa ka jira qorshe degdeg ah oo maalinta Saturday-da xaflad uu qabtay walaalkeen Kaahin lagu qabtay hoolka Jigjigo kaas oo si emergency ah loo rabo in wax lagu gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan meeshaas qorshooyin badan ayaa socdo oo dad badan ayaa ila soo xiriiray oo dhahay intaan wax ku dirnaa waa ogtahay wadanka aan joogno qof lacag iskama aruuri karo oo xoogaa waxyaabo badan oo sharciga diidaya ayaa jira laakiin si yacni dhalinyaranimo ah si ma arkino Soomaalinimo ah ayaan waxaan rabnaa inaan u asad gareyno yacni arrinta iyo sidaan wax u samayn lahayn insha Allah tacaala
number ayaa jiri doono oo ah number gurmad beledweyne la yidhaahdo oo dhalinyaro soomaaliyeed oo jooga magaalada muqdisho garowe gurceel kismaayo meel walba oo soomaaliya ka tirsan joogo isku xiran ujeedkoodana uu yahay inay u gargaaraan ummadda soomaaliyeed aysan ahayn qabiil marka lambarkaas waa idinla wadaagi doonaa si sharci ayaa loo sameynaya lambarkaas adaa ku wato maasha allah sabtida kaahin maasha allah barnaamijka fundraising uu qabanayo dad badan baa raba inay dadkooda caawiyaan hooyooyin badan aabayaal badan iyo dhalinyar badan oo soomaaliyeed oo arrinta ka murgooday baa jira maasha allah oo soomaali maxamedan waxay rabaan inay caawiyaan oo ay ka qayb qaataan qaabkay ku caawin lahaayeen marka kaahin xalfadda uu qabanayo ee jigjiga mool ku qabanayo insha allah dilaa so waa fundraising oo qof walbeeto waxa uu awooday wuxuu ku caawin karo oo la imaan karo soo ma tigidho ayaa la gadi doonaa I think tigidhka inuu noqon doonaa u malaynayaa $25 hoolkana waa ogtahay limit ayuu leeyahay oo 200 qof ayaa loogu talagalay laakiin tigidhadaas banaanka ayaa dadka yani lagu soo gaarsiin doonaa qofkii xataa aan imaan karin insha Allah ta'ala waa la wadaagi doonaa sidaas ayay qayb uga noqon doonaan insha Allah ta'ala wixii information ana waan soo geli doonaa oo meeshii kala xiriir lahaydeen iyo tigidhada iyo qaabka iyo dhowr meel oo karmeel ka tirsan iyo moolka 24ka ayaan dhigi doonaa tigidhadaas insha Allah ta'ala xawilaadlayaasha sidoo kale ayaga naftirkooda waa dhigi doonaa masaajidada waa tagi doonaa insha Allah ta'ala community-ga reer Minneapolis haddaan nahay mar walba waxaan loo kaga bartay in aan nahay dadka u taagan ummadda Soomaaliyeed inay garab istaagaan meel walba ay joogaan annagoona isku fiirinaynin qabiil annagoona isku fiirinaynin fikir siyaasadeed laakiin ujeedkeenu uu yahay hadday noqon lahayd qaraxi Soobo kala ka dhacay fatahaadii Puntland oo ka dhacday dhibaatadii ka dhacday Baydhabo meel walba oo Soomaaliya ka tirsan waxaan nahay ummad Soomaaliyeed waxaan u baahannahay inaan Soomaalinimo isugu imaano wixii siyaasad ah iyo fikir kala duwanaan waa yeelan karnaa laakiin waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed ka codsado in arrintan aan laga dhigin arrin yacni ma arkino aan isku farfiiqno in ay noqoto arrin aan ku midowno waa runta arrinta Sambaloolsha oo xoogaa ka hadashay ayaan rabaa hal arrin inaan ka dhaho oo ah Sambaloolsha maanta inuusan ahayn xildhibaan matala dadka ka soo jeeda gobolkaas oo ahaa nin shakhsi siyaasadiisa iyo fikirkiisa u hadlay laakiin adiga reer Beledweyne baa tahay Soomaaliga aniga nin reer Beledweyne aan ahay nin Soomaaliyeed aan ahay marka hore maasha Allah kadib waxaan ahay qabiilka waa wax in la isku garto waaye waa nin reer Beledweyne aan ahay laakiin waxaan kuu sheegayaa duqbilow in ummadda Soomaaliyeed siyaasiyiinta maanta matasha in aysan matalin dadkooda ay matalaan interestigooda iyo ayaga waxa dan ugu jira marka dadkaas yani waa dad shaqo tagay inaan ku mashquulno ma ahan kaliya asaga ma ahan waa badan yihiin siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo shaqo tagtay marka waqtiyuusan nooga dhumin yaanan far iyo aan ku taagin laakiin ujeedka ha noqdo in yani aan dadkaas wax u qabano in dadkaas aan u gargaarno message-ka aan diraynana uu noqdo message dadka xoogaa markino ku niyad siinay adaa ku wata raal noqo adaa ku wato maasha Allah horta dhibaatada waa dhibaato taagan weeye oo hadda idaacadaha iyo social media waxa aan ka daawanayno waa qof walba oo Soomaali wax muruga gelinaya weeye hooyo Soomaaliyeed oo dhibaataysan aaba Soomaaliyeed carruurtiisii la daala dhacay masaskii iyo xaaskii wabigii uu ku soo daayay magaalada dadna hadda waa nooga dhinteen dad qaali ah meel wada doontii qalmatay Ilaahu naxariistaan leeyahay arrintan hadda kaliya arrin taagan ma sababta Hiiraan ama Beledweyne arrintan fatahaadaha ama wabigan mar walba waa laga eedsiko marka ugu horeyso attention ugu badnaa Soomaali ka helaaw marka arrintan waxa Beledweyne magaalada la yiraahdana iyo inta ku hareeraysanba waxa weeye administration-na ka jiray maamulo badan ba ka soo shaqeeyay so arrintan waxa soo celiyay wabigan sida uu biyaha u soo daayo hadii reer Hiiraan ama reer Beledweyne ata oo aniga ma arkin laakiin waa aragto malena sababta wabigan mar walba biyihiisa magaalada ugu soo fatahaan ama dhimashada u keensado ama barkicinta u keensado maxaa u sababa leedahay adoo maasan
وانا سؤال aniga aan kula damcay weeyaan okay ma hadaad ka jawaabi karin su'aal maya waa su'aal aad muhiim u ah su'aal walba oo aad leedahay yani waxay u baahan tahay in bulshada la gaarsiiyo duqbilow waxa u tahay free waxa tahay nin shakhsi Soomaaliyeed aaladan Facebook-gana dadka maanta waxa tahay yani warkiisa meel dheer gaaraya marka waa muhiim qalbigaada su'aasha ku jirta islihin ninkan su'aal walba aad weydiisid kama jawaabi karo waxaan rabaa su'aal walba oo aad u aragto in yani qof la weydii karo inaad weydiisid haddaan u soo noqdo su'aashaadii ahayd maxaa magaaladan u keenay yani kaliya waxaan dhihi karaa waa wax rabbaani ah oo magaalada Beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka Soomaaliyeed ka mid ah oo webi dhaxmaro waa ogtahay shacabka Soomaaliyeed ma lahan dawlad xoogan haday tahay local government ka dhisan magaalada Beledweyne iyo Hirshabeelle government waa ogtahay dawladda Hirshabeelle inaysan ahayn dawlad xoogan oo ay tahay dawlad ku hoos nool dawladda federaalka Soomaaliya sida Jubbaland oo kale ay u tahay dawlad xoogan siday u tahay Puntland oo kale dawlad xoogan ma ahan dawlad xoogan oo dadkeeda taageeri karta ama wax u qaban karta dadka shacabka ku nool awood uma lahan inay biyahaas maanta ay yani ka hortagaan kaliya waxay sameyn karaan dadaalada muuqdo oo aad u jeeday yani xataa governorkii maayarkii magaalada mas'uuliyiin badan doonta ay shalay kula degtay oo ahayd inay naftooda ay u haligeen waa dadka localka ah marka dadaal badan ayaa jira arrintaana waxay u baahan tahay arrin dawlad ay wax ka qaban karto iyo ummadda Soomaaliyeed inay isku tagto iyo hay'adaha caalamiga in lala tashado dadkan Soomaaliya waa iska taqaanaa instructionka ma lahan dhismayaal xoogan ma jiro yani biyahaas awood ay ku celiyaan ma lahan wadamadan aan ku noolnahay waa ogtahay duqbilow dhib yar hadduu dhaco waa laga sii fikiraa dad ayaa ku shaqo leh waa laga sii hortagaa yani waxyaabo badan oo waxaa la sameynaa waxaan ilaahay laakiin ka hortag badan iyo dadaal badan marka insha Allah taala magaaladaasna ma sha Allah siyaasadda kore waan ma sha Allah ugu maana talagalin su'aashaan ka raal noqo waxa galeynaa waxaan rabaa waan waqtiga inagu yar oo waqtiga ina hayo ani adigu reer Minnesota nahay muwaadiniinta Soomaaliyeed ama community-ga Soomaaliyeed state of Minnesota ku nool ba ka mid nahay ma sha Allah kaahin waa soo dhaweynaynaa qorshaha uu wado waanaan insha Allah waan ka soo qayb gali doonaa anigana wixii aan markaa ka geysan karo waa ka geysan doonaa duular guud ahaan hooyooyinka aabayaasha shacabka Soomaaliyeed ee reer Minnesota ama nawaaxiga Minnesota degan maxaa ugu baaqaysaa ama qaabka ay garaysa ugu sahlan uga qayb qaadan karaan bal siida adoo maasan aad u maasan tahay duqbilow sida Soomaalinimada ah ee message-kaada yani rabtid in aaladaada Facebook aan u marino marka codka okay ma mise kaliya ugu soo noqonayaa ما يسوي نفسه أنا كو مقلع هذه كو سعودي ماله سوي نفسه برضو مقلع وحرب كهر أنت أنا كجواب أنا تقبله وانن أنا سلت جناه مقالة مينيابوليس وانن personal إسنقانو أو أن سي personal وشيء كيسانو marka horta waxaan rabaa inaan kaaga mahad celiyay oo dadaal kan iyo hawshan u istaagtay aad tahay social media dadka inta badan yani codkooda uu aad u dheer yahay marka waxaan rabaa in qofkii more information rabo inuu aniga ila soo xiriiro inuu la xiriiro yani dadka abaabulka ah yani flyer kana insha Allah taala waan soo dhigi doonaa sida joogtada ah yani aan u soo geli doonaa insha Allah taala meeshii ay kala xiriiri doonaan hadduu ilaa yiraahdo aad iyo aad baad xuseen ugu mahadsantahay xuseen barre waa muwaadin Soomaali xasan goodax ali dhaha xasan barre lima dhaho xasan goodax raal noqo magacaagaan qalday ma sha Allah goodax barre because magaca horena ka hormariya goodax barre wasiirkii aad taageersan tahay akaafatay aniga waxaa la dhahaa xasan goodax raage دبل اللي ده ما شاء الله رادير وكاسا ان شاء الله تعالى نين waxaa ahay ka soo jeedo gobolka Hiiraan laakiin nin Soomaaliyeed u taagan volunteerka Soomaalida haday noqoto samafal haday noqoto isboorti waxaan kala rabaa dhalinyarada isboortiga inaan fariin meeshan uga diro oo ah in ay yihiin dadka kaliya aad u liito kaliya banooni la isugu yimaada laakiin marka ay noqoto in dadkii yani wax loo qabto loo istaago in ay yihiin dadka u liito ما شاء الله السوشيال ميديا
waxaan rabaa fariin inaan u diro oo ah inay u istaagaan arrintan yacni maarkino gargaarka ah صح inay u istaagaan soomaalinimada fikirka waa lagu kala duwanaan karaa hal iskarbaasho waddan waxaan joognaa dimuqraadiya ah adduun waxaan joognaa maanta hal guri lagu nool yahay siyaasaddiisa qofka ha ku nicin duqbilow waa nin muxaafid ah dowladda taageersan waa nin maarkino yacni fikirkiisa ku gudbisado social media yaa lala yaabin hawshiisa wataa kambeynkiisa ما شاء الله aad baa umahadsan tahay waa khadka iga xuna umalaynayaa waana intaa waan maqlay ayagana waan maqleen umalaynaya aad iyo aad baa umahadsan ummadda soomaaliyeed aad baa idin salaamaya insha allah hadduu la yaraado anigana waqtiga igu yar waa inaan ka qayb qaadanaa gurmadka gobolka hiiraan iyo qaas guud ahaanba dalka soomaaliya ee webiyada kusoo fataheen hooyooyinka soomaaliyeed aabayaasha soomaaliyeed waa inaan caawino wey aad iyo aad wixii kale howle waa dib baan u dhiganaynaa insha allah hadduu la yaraado waqtigeedo yaan soo geli doonaa waana runtii simbolshe su'aalahan ku weydiinayay waxaa weeye waa xaqiiq weeye hal waar ka dir macado juwaan wato carro wato annaga aan ku aragno hadduu ilaahay raa insha allah war aad iyo aad baa idiin salaamaya maanta toobi kaleto ma jiro harin kaletana ma jirin magaalada beledweyn iyo magaranaysa webigaasi dadka naga dhammaynayo waa in maanta loo gurmado wey dowladda soomaaliyana waa inay qorshe wanaagsan oo qurux badan oo dadkan sanadka dambeeto looga gaashaanto waa inay la timaado wey aad baa idiin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu حسن وأدنى بما سنتهاي أدبان كو سلامي أخيارتنا أدبان كو سلاميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته